kula weeliyaan xulalka Tanzania, Djibouti iyo Zanzibar waxaana dhanka kale qaar ka mid ah ciyaartooyda ee muxalliliinta dhanka kubadda cagta Soomaaliya ay ka hadleen in groupkan B Soomaaliya ay markaas rajo wanaagsan ka yeelan karto kasoo bixitaankiisii. Ismaaciil Diyeeshe oo horey markaa uga tirsanaa ciyaartooyda xulka qaranka dalka Soomaaliya imikana door muhiim markaas ku leh marka loo eego in uu soo eego ama xulka ku soo biiriyo xidigo markaas professional oo dalka dibadiisa ka ciyaara ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay groupka B oo Soomaaliya ku jirto waxaana uu ku qoray tani waa rajo aad u weyn Soomaaliyana groupkan way ka soo bixi kartaa alxamdulillah. ciise aadan abshir ciise dheere oo isna horey uga tirsanaa xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya oo ku sugan dalka Norway ayaa bartiisa waxa uu soo dhigay aad ayaan ugu faraxsanahay runtii waxaynu markaa galnay group aynu ka soo bixi karno. si kastaba xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya oo isagu tartankii ciyaaraha isreebka koobka kubadda cagta adduunka gaar ahaan labadii kulan ee xulka Zimbabwe wacdar markaasi ka dhigay ayaa la rajaynayaa inay ku soo biiraan tiro aad u badan oo ciyaartooy professional oo dalalka kala gedisan qaaradda Yurub, waqooyiga Mareykanka iyo sidoo kale dalalka Carabta iyagu ka ciyaara taasoo la rajaynayo Soomaaliya in markii ugu horeysay mar kale ay taariikh ka samayso tartankan xiisaha badan ee bariga bartamaha qaaradda Afrika oo aanay